adigu riyadiisii ahayd waan tirtiraynaa iyo tan way isku soo beegantay waa laga yaabaa in aragtidu qofka isbedesho shalay waxaad khalad u arkaysaa inaad maanta kolka dhex gasho dad warsidii ma laakiin maalinka hore Ilaahay waxaan ku hadlaynahay uu qoray waqtiyada qaar qoraalkii maalinada uu soo dhigay oo ka faalooyin ka bixinay maanta madaxweynaha soo gacantiisa ku tirtiray ujeedaduna waxay waagaad waan tirtiri doonaa marka madaxweynuhu dabcan waa asaas meegaanka Soomaalidu waa deegaankii koobaad ee kabineedkiisu fadhiya ciidankii ay dhahaan maartay waa kala dirana amxaaradii iyaduna godood bay sii wadaa oo iyadu ay boodinaysaa way diidan tahay kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xog waran waxaanu qaybtan idinku soo gudbinaynaa ama idinku qaadaa dhigaynaa dawladda deegaanka Soomaalida guddigeeda fulinta ama golaheeda kabineedka oo fadhi ka yeeshay arrintii maalmahan baraha bulshada haysatay ku saabsaneyd ciidamada dawladda deegaanada ee liyu booliska dawladda deegaanka Soomaalida kabineedkeeda oo fadhiistay ayaa shaaciyay inay arrintaasi jirto ansixiyay in ciidanka la kala dirayo hubka laga dhigayo laguna kala darayo laamaha kala gadisan ee federaalka haddii ay iyagu ogolaadaan ama ay iyagu dooqaan optionno afar gaadhaya ayaa loo hordhigayaa ciidamada gaarka ah ee liyu booliska nin walbana khaanadaha afarta aan buu mid kamid ah gali doona ama buuxin waxa inoo qaada dhigaya ama inoo faahfaahinaya iguna weeriye barnaamijkan wariyadiin xarago wixii soo dhaw Cabdiraxmaan waan dhawahay daawadayaasheenna waan salaamayaa waxay inoo joogtay in hawshii dawladda deegaanka Soomaalidu uu noqday midku ugu horeeyay ee ka falceliya soona dhaweeya arrintan ciidamada la kala dirayo waxaa hadlay hoggaanada nabadgelyada ee maamul goboleedyo dhowr ah sida ka Tigreega ka Oromada iyo ka Soomaalida axmaaradu iyadu waxay tiri suul fara kama tirsano oo dagaal bay bilowday oo kaga jawaabtay waxay ku banaan baxayeen maanta dhashiikayaal iyo hubab waaweyn oo culus kaasi ugu goodiyeen cid kasta oo ciidamadooda soo faragelisa inay cawaaqib xun marinayaan dawladda deegaanka Soomaalidu hoggaankii nabadgelyada oo hadlay sheegay in arrintaasi jirto ciidamadana isbedelkan lagu sameeyo ay soo dhaweynayaan maanta golihiisa kabineedka oo ah meesha ugu dambeysay talada ay ka goodo xukuumadda waa uu fadhiistay wuxuuna soo saaray qodobo dhowr ah oo uu kaga hadlayo hawsha iyada ah ku saabsan qodobadaas bal ma akhri kartaa Cabdiraxmaan horta waa run waxaan horta la soconay sida aynu barnaamijyadeena ku baahinay in ciidamada gabi ahaan bal kala dirayo deegaanka Soomaalidu wuxuu noqday deegaankii ugu horeeyay ee si cad oo aqbala baaqa abiye ku aadan in ciidanka gabi ahaanba la kala dirayo waa marka laga hadlayo ciidanka xooga gaarka ciidamadii deegaanada iyagu markaas u aasaasnaa deegaanada inay ka howlgalaan deegaanka Soomaalida waxaa hadlay ninka xafiiska nabadgelyada jooga Dayib Axmed Nuur waxay soo saareen in ay isla qaateen ka maamul ahaan iyo ka ciidan ahaan in ciidanka dib u habeyn lagu sameeyo la kala diro markaynu ka soo laabano dabcan intaas uu sheegay waxa jirtay maanta niskii dambe ama galabta intii galabnimo waxa yeeshay fadhigoodii golaha kabineedka ee deegaanka Soomaalida oo madaxweynuhu shir gudoominay kabineedkaasi waxa laga wada hadlay ama laga fariisanayay fadhigoodu waa kala dirista ciidanka kala dirista ciidanka marka afar option baa loo soo dhigay ciidanka in ay kala leeyihiin doorasho afarta doorasho wax ka baxsan inaysan u banaaneen waqtigan qofka ciidanka deegaanka jooga afarta qodob waxay yihiin waa kuween xanta ku sii haynay qaarkood waa in ciidamada federaalka lagu xoojinayo oo lagu darayo militariga in lagu darayo ciidamada federaal booliska ee heer qaran iyo in ay noqonayaan ciidamada booliska caadiga ah ee deegaanada ka howlgala sida booliska gudaha ee kuwan asluubta iyo iyagu markaa kala baxbaxaya la taraafikada iyo saad u kala duwan ee gudaha ka dagaalama ee gudaha ka howlgala
intaasi waa saddexda option ee ciidannimo qofka ciidanka uga bannaan deegaanada dabcan bayaanadan lagu sheegay in ciidamadooda aan la ogolayn in ay ka howlgalaan deegaanka Soomaalida ka mid u yahay afarta saddexdaasi markaynu kaga soo laabano optionka afraad baa noqonaya inuu qofku haysto ruqsadu kaga fadhiisto ciidannimada haddii isagu lafiisa uu ka fargarayn karayo amaba uu de nolol ka duwan nolosha ciidannimada uu dib u raadsanayo in gabi ahaanba uu isagu markaa option u haysto inuu dadkiisa baalka raaco shacabkiisaas uu iska noqdo qof shacab ah halkaasna waxtii xaqa dawladda uusan ku yeelanayn dabcan siday u sheegeen ama se u ogyahay bayaankoodu ciidamada marka aynu ka hadalno ciidanka deegaanka Soomaalida waxa way ciidan loo tababaray sida aynu horeyba u sheegnay ciidamo special ah bayahaano si gooni ah u howlgalay madaxweyne Mustafa intii uu joogay intii hore waa la isla yar dhibanaabay dadku leeyihiin madaxweynaha waxaanu la soconaa markii loo dhiibay madaxtooyada intii hore muddadii hore sur u galaanayeen maadaama nin activist ah ahaa ciidamadana uu dhaliili jiray waqtigiisii iskil lahayn waxa madaxtooyada ku ilaalinay ciidamo federaal ah federaalkiisa ka dhawaayeen markaa intii dambe haddana hogaamiyaashii iyo wixii marka laga kala bedelay dib baa la isku fahmay waxbaa la isku dhaxshaandheeyay kadib haddana way is urur galaadeen laakiin waqtiga wixii ka horreeyay waxaa ciidan amarra saraakiishoodu siinayaan ku shaqeeyo oo qolalka qaarkood maxaan ku radaa iyagu aan qoob iyo qacaho waxa weeye kala dirbaad sheegay macnaha aan loo soo dhawaan karin waxay xaq u leeyihiin ama iyagu marka shaqadooda aan gorgortan gali karin laakiin maanta way ka duwan yihiin guud ahaan wixii way isbedeleen booliska caadiga inay noqdaan inay reerahoodii kala tagaan inay federaalka ku biiraan inay boolis federaalka ama kuwa localka ama kuwa federaalka ku biiraan marka waxa jirta ciidankan boolis ma aynu ciidan military ahaan waxa oo xiriir leh oo magaalooyinka ka baxsan oo gaadiid leh oo hubaysan oo hub aan boolis iyo haysan karin maxaan ku dhahay asluubtoona ku hubaysnaa dhaawac lahaa magdhow iyo xuquuq iyo waxba waxyaalaha ma laga hadlay waxyaalaha horta wali lagama hadal low hoggaanka nabadgelyadu maalinkii dibadda ka hadlo la ciidanku ma horta hadalkii hoggaanka nabadgelyada siyaabo kala duwan baa ciidamada generaalka hoggaanka ciidamada federaalka oo hadlay iyo dawladda federaalka warkii sheegayaan iyo warkii deegaanku sheegayaan waqtigeena way yar kala duwanaayeen nimankaas waxay sheegeen inaan ciidamo gaar ah la ogolaanayn hubka la midka hubka military wataana deegaamada lagu wato technicadan aan la ogolaanayn laakiin iyagu hoggaanku iyo bayaanka ka soo baxay xafiiska nabadgelyadu wuxuu sheegay in xuquuqdoodii xaqoodii iyo accesska ciidanimada ay helayaan oo ay ka dhigan tahay macnaha magacan la bedelayaa qalabkoodii iyo waxoodu iska wadanayaan laakiin waxa imika waxay og tahay wixii hubaya technical ah qoryaha caadiga lagu weysan yahay marka laga yimaado wixii technical ciidan technical ahaan gawaari loo waxa caadi waa howlgaladooda ugu fulinay waxaas guud ahaan waxa ogtahay in ciidamada federaalka lagu wareejin doono marka imika waxa weey taariikhda deegaanka Soomaalidu waxa uu noqonayaa deegaankii ugu horeysay ee si cad u aqbala in ciidamada la tirtiro oo la kala ku hubaysnaayeen waxa laga soo ururiyay dabcan shacabka deegaanka qabiilada maxaan ku dhahay odayaasha wax noocaas laga soo ururiyay degmooyinka waa lagu hubaynay oo yani hubkan boqolkiiba 90 inta ka badan waa hub shacab hubkan isaga federaalka ma la wareegi mise shacabka iyo deegaanka dib loogu soo celino laamaha kala duwan ee maleeshiyada waxyaabahaas lagu hubay umalayn ma arrintaas inay suuro u noqonayso siyaabo badan suuro weyn u noqonayso dadkeena shacabka islaayo dhul isku laayeen hadii hubkii la dhaw dawladda ee ciidankii dib loogu celinaya waxa weey wax macquul gala inay sanahayn baan u malaynayaa oo de siyaasad ahaan iyo markaad fiiriso adiga meel dawlad ka jirto meel may dawlad weyn ka jirto in la dhaw hubkii ciidanka waxa lagu wareejinayaa dad shacab wax macquul ma ah shacabka ma laakiin deegaanka jiro maleeshiyaan oo jooga maleeshiyaankaas horta muhiimadda ugu weyn waxa weey ciidamadan mushaar bay helayeen dawladda bixinaysay mushaarkoodii marka waxa ay u muuqataa dalku maadaama dagaal galay in ay awoodda federaalka ay qaataan awood ka badan oo kale mushaar ay qaataan ciidamada deegaanadu
وكحقوق عيدا كفدرال كمركز دولة دين يتهلي كرويدي عيدا كفدرال كأنه وحيسوها أنا خجار الله سيو وحيو حقوق ذي أردن هاي نقطة ميدا وضع كنا وضع معناها دغاليس وهذا يهمه ووضع في غيره كالمها عالم كويسيان بعد أفريقيا ودمده دواس كساس ودون ده بعد كالمه يا ما حسيس مركي يحفها موان غالب أود بدن capacity producer مله مركا taas laakiin aniga ahaanteedu ma lahayn ma in shacab lagu soo celin laakiin hanti shacab baadiyas oo dad shacab ah laga ururinay marka la qorayo ciidamada marka la qorayo maleeshiyaadka laga soo bilaabay iyagana maleeshiyaadka laga soo dhax saaray qofka waxa la oran labada qof ee ilmaadeerka tusaalahan waxa la sameyn jiray konton wiil oo waysa keena marka labada wiil ee ilmaadeerka mid ciidanka galba la oran waa lagu dhigi baaha wax la dhaa jiray moogta Soomaalida baaha waxay baahadu tahay tusaalahan labadeena baan ama adiga ama soo gali macnaha dhagar ama dhiig amaana gali waxa laga qaaday macnaha magti waa inaan bixiyo marka nidaam saas kala ciidamada lugaas maadaama Soomaaliland in hebel markuu qoriga qaado in hebel wadna waa lagu daray hadii kale qoriga uu iibiyo idinku si idinku u badbaadaan marka qolana qofkay bixinayo qoriga bixinayo waa dadka walaalaha marka hubkan haduu hub sida lagu keenay aha laguma wada keenay dhamaan hubka lagu wada keenay ma dhaanay laakiin intaas waa aad jirtaa degmooyinka deegaanada markii la asaasay oo la filada gaalamay waxa ugu badan ee focus kala saaray kaas waa dadka cadaadka waa hanti shacab iyaga laftooda qayb ka yihiin marka taas laakiin aanu malayn ma in dad shacab wax laga qaaday waa hanti guud baa wala jira wax war oo ciidamadii iyo taliskoodii ka soo baxay mise ku qanacsan wali waxba kama soo bixin deegaanadooda waxa lagu muujin lahaa siyaasiyiin diiday oo si cad uga hadlayna lama arag shacab diideen oo si cad iyaguna uga hadlay lama arag marka waxaad moodaa dadka shacabka inagu ciidamadeenu deegaankeenu weyn isku meeysanaa mar walba ciidamadeenu hadii ay insan ahayn ciidamada tacadiyada deegaanka ka dhacaan ka soo qayb qaadanayno dadka shacabka oo ay dhibaato kaga soo dhaceen iminka shacabka waxaad arkaysaa media iyo marka aad aragto falcelinta baraha badan qofka ugu yar baa ku dhahay walaalkay baa la dilo la sirqiyay new bolis intaas noogeys wali xukunkii uu hore ahaa ciidan deegaan u ahaa oo dadka nabadgelyadooda ilaalinay haddana waqtigii la bilaabay si waxa lagu bilaabay arxan darra oo dadka aad maartay xinjaxa lagala dagaalamay marka taa dadka shacabka laftooda xusuus xun bay u noqonaysaayo waxay leeyihiin bal iyaguna wiilasha iska banastaan aragtidii khaldanaad inka la isku gudfanayeen bal meesha ka baxdo Itoobiya ilaa is dhamiso marka laakiin Mustafa maanta madaxweynihii labaad ugu taariikhda dheer deegaanka ayuu noqonayaa madaxweynihii ciidankii deegaanka ka jiray waxa way 10 sano ama 15 sano ugu dambeeyay ka howlgalay maanta golihiisa kabineedku ka fadhiisteen oo bayaan ku ansixiyeen walow Mustafa marka la fiiriyo qoraaladiisu soo dhigi jiray dadka Ibraahim bulshada marka soo waxayaan uu oran jiray ciidamada waan kala diray doonaa isagoo waqtigaas ahaa qof activist oo ka soo horjeeday xukunkii Cabdi haddana intii ka dambeysay madaxweyne markuu noqday wax badan buu la saxay isku celiyay laakiin adigu riyadiisii ahayd waan tirtiraynaa iyo tan way isku soo beegantay waa laga yaabaa in aragtidu qofka isbedesho shalay waxaad khalad u arkaysaa inaad maanta kolka dhex gasho aad warsidii ma laakiin maalinka hore diilahay waxaan ku hadlaynahay uu qoray waqtiyada qaar qoraalkii maalinada uu soo dhigay oo ka faalooyin ka bixinay maanta madaxweynaha soo gacantiisa ku tirtiray ujeedaduna waxay waagaada waan tirtiri doonaa marka madaxweynuhu dabcan waa asaas meegaanka Soomaalidu waa deegaankii koobaad ee kabineedkiisu fadhiya ciidankii ay dhahaan maartay waa kala dirana amxaaradii iyaduna godood bay sii wadaa oo iyadu ay boodinaysaa way diidan tahay qoliyaha kale Tigrayga iyo Oromaduna iyagu waxa weeye doorkan way iska hurdaan iyaga ma saarna culaysku aad buu maadsan yahay kaasina wuxuu ahaa wariye Muxidiin Xarabo barnaamijka xogwaran ayaa daawanayseen anigoo Cabdiraxmaan ayaa ku wehelinayay Muxidiin daawadayaal waxaan idinku codsanaynaa wixii talo iyo tusaale ah inaad nagula wadaagtaan commentiga hoose. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.